boqol qoys oo ka soo jeeda qoysaska danyarta ayaa ka faa'iidaystay deeq raashin ah oo ay jamciyatu Iidoor Al-Khayriya ugu qaybisay duleedka magaalada Muqdisho qoysaskaasi. madaxa hay'adda jamciyatu Iidoor Al-Khayriya Raaniya Maxamed Cali ayaa ka warbixisay deeqda raashinka oo ay jamciyatu Iidoor Al-Khayriya gaarsiisay dadka danyarta ah ee ku nool duleedka magaalada Muqdisho. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxba ilaah baa mahad iska leh oo nagu wada kulmiyay halkan. waxaan deeq anfurin soo gaarsiinay masaakiinta aad u jeediin. kadib waxaa mahad celin iska leh Abu Khalid oo anfurintan soo dhiibtay. khayr badan Allah iska siiyo. ilaahayna ka jiseeyo anfurinta oo dadkan u soo dhiibay. mid ka mid ah qoysaska ka faa'iidaystay deeqda raashinka oo ay u qaybisay hay'adda jamciyatu Iidoor Al-Khayriya ayaa ka mahad celiyay. maanta oo soom soo dhow yahay ilaahay mahadiis waaye. ilaahay khayr waana siiyey maanta ay noo bilaabato oo soonka soo dhow yahay sabda asnoo yahay. nin curyaana igu xariiraa maanta xalakaarna la siiyey sidii ninkii ku soo waday. maantana ilaahay wuxuu noo sahlay wax aan soonka aan ku bilaabano bariis iyo bur iyo sokor iyo timir iyo caano boore iyo cabitaan. Abu Khalid waa mahadsan yahay khayr Allah asiiyo umr dheerna Allah asiiyo. Abdulaziz Ibrahim Ahmed Oke TV Universal magaalada Muqdisho.